نهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمع. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، إن شاء الله waxay ku saabsan tahay muxaadaradeennan fadl yowma carafa ama fadl yowma carafa guud ahaanteeda iyo axkaamul ciid wax ka sheegnay insha allahu tacaala. waxa ugu horeeyo oo aan ku dhex jirnaa hadda maalmahan sidaan hore uga soo haranay ayaamihii 10ka ahaa oo ilaahay ku dhaartay subxaanahu wa tacaala walfajri walayaalin cashrin. fajarkii aan ku dhaarto alla yidhi subxaanahu wa tacaala iyo habeenada 10ka ah waa 10ka dilxija maalmahan aan ku dhex jirno ee fadliga badan leh. maalmahan waa soo sheegnay fadliga waxyaalaha siiye waxaa ka mid ah inay ka mid tahay afdalu ayaami sana, sanadka maalmihiisa maalinta ugu fadli badan oo ah maalinta carafa. alwuquufu bicarafa waa xajka rukni ka mid ah oo weyn. haddii uu carafa ku dhaafa istaageeda xajkaadii waxba ka asixi maayo, xajkaadii waxba kama jiro. oo carafa yacni wuquufka wuxuu bilaabanayaa maalinta 9aad zawaalkeeda ayuu bilaabanaa ilaa fajarka maalinta 10aad sida raajixa insha allahu tacaala. intaa ka mid ah hadduu istaago qofka yani carafa waa istaagay ama habeenka qayb ka mid ah ama maalinta qofka marka waa alwuquufu bicarafa waa u asaxday marka. laakiin hadduu miskareeyo oo labadaas gafo waxay noqonaysaa marka inuu sanadka dambe soo xajiyo xajkiisii yani sanadka waa dhaafay. saasuu u yahay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alxaju carafa, xajka oo dhan waa carafa marka lasoo ururiyo. maalintaa waa maalin fadli badan. jaabir ibni cabdillaahi radi allahu canhuma wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min ayaamin cinda allahi afdalu min 10 dilxija. maalin ma jirto ilaahay agtiisa ka fadli badan 10ka bisha dilxija. ninmaa wuxuu yidhi faqaala rajulu huna afdalu min ciddatihinna jihaadan fi sabiili illah, min ciddatihinna jihaadan fi sabiili illah. tiro la eg oo jihaad fi sabiili illahi xataa ma ka fadli badan tahay buu yidhi. qaala huna afdalu min ciddatihinna jihaadan fi sabiili illah. tiradoodoo jihaad ah ilaahay jidkiisa lagu jihaado xataa waa ka fadli badantuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam. wamaa min yowmin afdalu cinda allahi min yowmi carafa, ma jiro maalin ka fadli badan ilaahay agtiisa maalinta carafo. yanzilu allahu tabaaraka wa tacaala ila asamaa'i dunyaa, ilaahay wuxuu u soo degayaa tabaaraka wa tacaala samada soke. fayubaahi biahli اlardi ahla asamaa, wuxuu ugu faanayaa alla subxaanahu wa tacaala dadka dhulka joogo arlada joogo bini aadam muslimiinta ah wuxuu ugu faanaa ahla samaa'i, samada ehelkeedu malaa'igta ah ayuu ilaahay ugu faanaa subxaanahu wa tacaala. fayaquulu ilah wuxuu leeyahy subxaana unduruu ilaa cibaadii, fiiriya addoommadayda, jaa-unii shuchan qubran daaxiin, waxay ii yimaadeen iyagoo basaasan oo boor badan, boor lugaha ku leh oo qoraxaysanayo. jaa-uu min kulli fajin camiiqin, waxay ka yimaadeen jiha kasta oo fog ayay ka yimaadeen. yarjuuna raxmatii walam yarow cadaabii, waxay rajaynayaan raxmadayda mana aysan arkin adinaha cadaabkayga. dadka meel fog ka wada yimid kulli, mid ka yimid asia, mid afrika ka yimid, maraykan ka yimid, mid ka yimid adduunka, min kulli fajin camiiq ka yimid. falam yura yowmun lama arkin maalin akharu catiiqan min annaari min yowmi carafa. maalinta carafa maalin ka xureyn badan oo naarta looga xureyn badan yahay maalinta maalin ay ka badan tahay lama arkina layidhi. alimaam mundiri wuxuu leeyahy xadiiska abu yacla ayaa wariyey, bazaar ibnu khuseym ibnu xibaan, lafdigan ibnu xibaana iska leh. saasoo kale anas ibnu malik waxaa laga wariyay inuu yidhi waqafa nabiy bicarafaat, ayuu istaagay nebiga waqad kaadat ishamsu an tatuuba, iyadoo qoraxdu ay u dhowdahay inay dhacdo.
فقال يا بلال أنصت لي الناس دتك إيه آمسي بكير بلالو. فقام بلال رضي الله عنه أيا استاغي فقال وحر أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم dhegaysta rasuulka alle fa ansata annaas dadkii baa markaa dhegaystay oo shanqartii joojiyey faqaala wuxuu yidhi yaa macshara annaas ataanii jibriilun calayhi asalaam aanifan fa aqra'anii min rabbiy assalaam. malaku jibriila hadda ii yimid wuxuuna salaan iga soo gaarsiiyey rabbigay xaggiisa caza wajal. wa qaala wuxuu igu yidhi malaku jibriil ina allaha caza wajalla gafara liahli carafaat wa ahli almashcari alxaraam. ilaahay waa u dembi dhaafay dadka carafaad iyo dadka mashcari alxaraam dadkeeda. wadamina canhum mutabicaat wixii loo haystay oo dhanna ilaahay baa ka damaano qaaday subxaanahu wa tacaala. faqaama cumar ibn khadaab radi allahu canhu ayaa istaagay cumar faqaala yaa rasuula allah haadaa lanaa khaasa ma annaga keliya noo gaar tahay oo annaga keliya iska leh dembi dhaafka ah. faqaala nabiga markaa wuxuu yidhi haadaa lakum idinkaa iskaletan waliman ataa min bacdikum iyo qofkii gadaal ka yimaad ilaa yowmi alqiyaama. faqaala cumar radi allahu canhu wuxuu yidhi cumar radi allahu canhu kahura khayru llahi wata khayrka ilaahay baa fara batay oo wanaagsanaaday. ilaahay subxaanahu wa tacaala deeqdiisa ayaa badan oo wanaagsanaatay. saasoo kale caaisha waxaa laga wariyey imaam muslim fii saxiixi muslim radi allahu canha nabiga inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma min yowmin akharu min an yuctiqa allahu fiihi cabdan min annaari min yowmi carafa. ma jira maalin ay ka badan tahay ilaahay uu ka xoreeya addoon naarta maalinta carafa. wa inahu layadnu caza wajalla huma yubaahi bihim almalaa'ika. ilaahay wuu soo dhowaanayaa malaa'igtuna ugu faanaa dadka ehlu carafaha fayaquulu maa araada haaulaa'i qoladan maxay doonayeen dadkan meesha tuuran maxay doonayeenoo u yimideen. saasaa ilaahay weydinaa malaa'igta waana ogyahay allah subxaanahu wa tacaala. marka ilaahay wuxuu markaa u markhaatigelaa malaa'igta inuu u dembi dhaafay. وعن أبي الدرداء وحلق النبي إنه عليه الصلاة والسلام رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيض منه في يوم عرفة. لما أركن شيطان مالن وكدو ليسين يهي يا مالن ولبا مارتي يعني كدحرسين دحرق وحلو جيدا يعني مالن لقدان قتيي أو لولك لغو دفتي أو جاقد أو لغو تنتي مالن يعني كي يهي مجرو ولا أغيض منه أغا بدن في يوم عرفة. ما أنت عرفة وما أنت أقول ليسيها شيطان كا وقو مارت لقو تنتا سقودن لوغون عرب بدين وما أنت عرفوا يلي. وما ذاك تاسنكما إما إلا لما رأى من تنزل الرحمة وحو مركو أركي رحمة سو دقيدة رحمة إلهي سو دقيدة إذا مركو أركي أيوسان نقضي وتجاوز الله عن الذنوب العظام يدافد إلهي ودافع دنبيذ وأوين إلا ما أري من يوم بدر إلا ما أنت بدر وحي لتسي معها. قيل وحل وما رأى يوم بدر يا رسول الله محو أركي ما أنت برد رسولك إلهي. قال وحي النبي مركا أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة. ما أنت وحو أركي وما أنت الدلوي وما أنت بدر ملك جبريل وملائكة قيبين هايو مركا ما أنت عرف أساسي وفضل بدن تهي وما fadli badan waxaa sunno ah in la soomo maalinta qofka aan xajka joogin waa maalinta sagaalaad maaragtay marka jimcahay ku aadantaa rajaynaya. maalinta carafa nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam soomidda la soomo maalinta carafo waxaa nabiga uu ku tilmaamay inay tahay ilaahay dembi dhaaf uu ka dhigay subxaanahu wa tacaala sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadka soo socdo ilaahay inuu ugu dhaafayo qofka dembigiisa subxaanahu wa tacaala. yani marka in la soomo maalinka waa sunna nabigana waa ka sugnaatay calayhi salaatu wassalaam. maalinta carafa asaga ma soonayn يعني wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam yowma carafa wa yowma annaxri wa ayaamu tashriiqi ciiduna ahlu lislaam wahiya ayaamu aklin wa shurbin. marka dadka xajka joogo looma sunnayn laakiin dadka kale inay soomaan ayaa loo sunneeyey oo ilaahay wuxuu ku dhaafaa subxaanahu wa tacaala sanadkii soo dhaafay iyo sanadka soo socdo labadaasaa ilaahay ku dhaafaa subxaanahu wa tacaala. fadligaasay leedahay maalinta carafa
haddii aan ciidda waa maalinta tobnaad, maalinta carafa waxaa ku xiga maalinta tobnaad. habeenka musdalifa marka la seexdo maalinta tobnaad maalinta ciidayna annaga maalinta waa soomanahay, maalinta tobnaadna waa ciidayna. marka ciidda waa iyadana waa maalin fadli badan. yowm alxaj alakbara la yidhaahdaa, waa maalintii xaj weynaha. waa maalin aad u khayr badan, maalin aad u fadli badan. waana labada ciidood, ciid uladxa iyo ciid ulfidriga, labadaas ayaa ilaahay noo jideeyey oo ciidaha muslimiinta ah oo maalmaha ay feesteeyaan dadka muslimiinta ah. salaada ciideynkaas waxaa la jideeyey sanadkii koowaad ee hijriyada. nabigana waa ku dadaalay, raggii haweenkana uu amray inay ciidda u soo baxaan. marka waxyaalaha sunnada axkaamta ciidda, maalinta ciidda ah khaasatan ciid aladxa haddan ugu soo socoto, waxaa sunno ah in la qabaysto oo lis udgiyo, dharka ugu qurxanna la labisto. nabiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay jacfar ibnu moxamed can abihi can jaddihi ana nabiy sal ly slam kaana yalbasu burda xabiratin fi kulli ciid. wuxuu xiran jiray marada xabirada la yidhaahdo ciid kasta. waa burdu xabira, yacni waa maro yaman lagu samayn jiray oo ciidaha lagu tago ayuu xiran jiray nabiga caleyh isalaatu wassalaam. waxaa kaloo nabiga wuxuu leeyahay can xasan asibti wuxuu leeyahay amarana rasul la sal slam fi lciidayn an nalbisa ajwada ma najidu wa an natatayaba biajwada ma najidu. wuxuu rasuulkana amray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh labada ciidood inaan labisano waxa ugu wanaagsan waxaan heli karno, inaan isku udgino waxa yacni uduga ugu wanaagsan oo aan heli karno, wa an nudaxi biathmana ma najid, iyo inaan ku udxiyeysano waxa aan heli karno waxa ugu qaalisan. yacni udxiyadii xoole inaan gowracan, saasuu nabigana amray caleyhi isalaatu wassalaam. marka waa sunna maalinka in lasoo labisto, dharka lasoo quruxsado oo lasoo qabaysto oo yacni lasi soo udgiyo oo saa lagu yimaado yacni ciidda. ibn qayim wuxuu leeyahay wakaana sal yalbasu lahuma ajmala hiyaabihi, wuxuu nabiga u labisan jiray labada ciidood dharkiisa dharka ugu qurxan. wa kaana lahu xullatun yalbasuha lilciidayni waljumca, wuxuu lahaan jiray labis xulla isku joog, labiska yani dhar isla socdo ayuu nabiga lahaan jiray oo uu xirtay jumcaha iyo ciideynka labada ciidood. waxaa sunno ah in ciidulfidriga oo soonka ciidan tan hadda ma aha, laakiin midda ciidulfidriga waxaa sunno ah in uu wax soo cuno, qofka timir iyo wax soo cuno intuusan, maadaama uu soonnaa intuusan ciidda soo aadin, timir adee tira isdheer ah inuu wax soo cuno ayaa sunno ah. laakiin ciidu adxaaga oo hadda soo socoto waxba cuni maayo, waaga hadduu u baryo waxba cuni maayo ilaa uu ka tukado oo salaada uu ka soo noqdo. wax ka cunayaa hadduu udxiyo qashay, udxiyadii wax ka cunayaa ama markaa kadib uu cuna hadduusan waxba qalin. anas wuxuu leeyay ibnu malik radi allahu canhu kaana nabiyu laa yaqdu yowma alfidri xataa yaakula tamaraatin wayaakuluhuna witran. nabiga ma kalihi jirin subaxda ciidulfidriga ah oo soonka ilaa uu timir ka cuno, wuxuuna cuni jiray timir tira isdheer ah. imaam axmed bukhaari aa wariyey. saasoo kale wuxuu leeyahay can burayda kaana nabi sal sl laa yaqdu yowma alfidri xataa yaakula walaa yaakula yowma aladxaa xataa yarjic. mana cuni jirin ciidul adxaaga ilaa uu ciidda ka soo noqdo, maadaama la afuran yahay. yacni fayaakulu min udxiyatihi, saasuu ibni maaja imaam axmed ay ku ziyaadiyeen. udxiyadiisu markaa ka cuni jiray. fi lmuwaطa imaam malik wuxuu leey saciid ibn musayib ana annaasa kaanuu yu'maruuna bilakli qabla alguduwi yowma alfidri. dadku waxaa la amri jiray inay wax cunaan maalinta ciidulfidriga oo soonku dhammaado intaysan ciid salaada aadin ka hor. ibnu qudaama wuxuu leey laa naclamu fi istixbaabi tacjiil akli walfidri ikhtilaafan, in la ciid fidriga oo soonka mida soonka in wax la cuno inay sunno tahay oo ka hor in wax la cuno wax khilaafa kama joogo. waxaa kaloo laga rabaa qofka inuu meesha lagu tukanaa soo aado oo yacni musalla in loo sameeyo meel lagu tukado oo yacni u gaaro dadka shicaarka islaamka uu ka muuqdo. marka musalluu lahaan jira nabiga ciidda laisugu yimaado oo aan masaajidkiisa ahayn.
waana bannaan tahay masaajid in lagu tukado dhib ma leh yani nabiga laakiin musallaha oo magaalada bannaankeeda ayaa fadli badan haddaan cudurdaar jirin roob iyo waxadiisan jirin maxaa rasuulka alayh salatu wasalaam ciideenka wuxuu ku tukan jiray musallaha kumana tukan masaajidkiisa hal mar oo cudurdaar roob uu jiray keliya ayuu ku tukaday nabiga alayh salatu wasalaam abu hurayra waxaa laga wariyay inuu yidhi annahum asaabahum matarun fi yowmi ciidin fasallaa bihim الnabiy salaata alciidi fi lmasjid roobaa ku da roobaa qabsaday markaa nabigu wuxuu ku tujiyey salaadii ciidda masaajidka dhexdiisa waxaa kaloo sunno ah in ay soo baxaan haweenka iyo caruurta dadkao dhan in lasoo saaro ayaa sunno ah ilmaha oo yimaadaan meesha lagu tukanayo iyadoon la kala soocin gabar iyo garoob iyo mid dhallinyara mid waayeela xayd mid qabtay iyo midaan xayd qabin intaba maaragtay kulli la yimaado xadiiska umucdiya wuxuu leeyahay amaranaa rasuulku wuxuuna amray an nukhrija alcawaatiqa waalxuyada fi lciidayni inaan soo saarno yacni kuwa cawaatiqda waxaa loo jeedaa gabdhaha bikrada oo yaryarka ah eelna weli la guursan in lasoo saaro iyo kuwa caadada qaba ciideynka yashhadna alkhayra wa dacwata almuslimiin waxay xaadirayaan oo ka qaybgalayaan khayrka iyo ducada muslimiinta wayactazilu xuyadu lmusallaa haweenka caadada qabana way ka durkayaan dhinacay uga istaagayaan dabcan salaad tukan maayan iyaga meesha lagu tukanaa muttafaqun caleyh ibn cabaas wuxuu leey rasuulka alayh salaatu wasalaam wuxuu ahaa kaana yukhriju nisaahu wa banaatahu fi lciidayni haweenkiisa iyo gabdhihiisa iyo kulli wuxuu soo saari jiray ciideynka ibnu maaji bayhaqi ayaa wariyey ibn cabaas sidoo kale wuxuu leey kharajtu maca nabi yowma fidrin aw adxa fasallaa ثuma khataba ثuma ata الnisaa fawacadahuna wadakarahuna waamarahuna bisadaqa rasuulka ayaan wuxuu yidhi la soo baxay maalin ciid ay ahayd ciidulfidr ama ciiduladxa marka wuuna tujiyey khudbadii buu akhriyey kadib haweenku u yimid waa wacdiyey wuxuu xasuusiyey aakharo wuxuuna amray inay wax sadaqaystaan waxaa kaloo sunno ah cinda akthar ahli cilmi waxay leeyihiin inay sunno tahay laba jid inaad ku kala baxdo jidka aad ciidda ku tegayso iyo jidka aad kaga imaanayso inaad kala duudo oo dariiqa aad kusoo noqonayso u noqdo dariiq kale yacni qofkaas marka imaam ha noqdo ama ma'muum ha noqdo jaabir radi allahu canhu wuxuu leeyahy kana nebi sal slam ida kana yowma ciidin khaalafa dariiq imaam bukhaari aa wariyey nabiga wuxuu ahaa hadday maalin ciid tahay jidka wuu kala duwi jiray jidka waa kala leexin jiray yacni jidkuu ku tegay jid aan ahayn ayuu kusoo noqon jiray saasoo kale abu hurayra waxaa laga wariyay inuu yidhi nebigu wuxuu aha calayh isalaatu wasalaam ida kharaja ila alciidi yarjicu fi gayri dariiqi aladi kharaja fiihi rawahu axmed wamuslim watermadi nebiga wuxuu ahaa haddii uu ciidda u baxayo wuxuu kusoo noqon jiray jidkii uu ku baxay jid aan ahayn ayuu kusoo noqon jiray xaaraan ma aha inaad kusoo noqoto jidkii naftiisii haddii danta kugu khalifta dhib ma leh xataa hadduusan qofku kusoo noqdo waxba looma hayso yaanan maarata qofka lagu qabsan hadduu kusoo noqdo jidkiisii wuxuu leeyahay bakar ibnu mubashir kuntu aqdu maca asxaabi rasul ila musalla yowm alfidr wa yowm aladxaa waxaan la kalihi jiray saxaabada rasuulka ayaan la aadi jiray meesha lagu tukanayo ciidda labada ciidood fanasluku badna badxaana xataa na'ti lmusalla waxaan qaadi jirnay badna badxaan meesha la yidhaahdo ayaan qaadi jirnay yani waa waadi madiina ku yaalo ayaan sii dhexmari jirnay ilaa aan ka tagna meesha musallaha fanusallii maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkaan la tukan jirnay salaatu uma narjicu min badni badxaana ilaa buyuutin haddana waxaan kusoo noqon jirnay waadigii badxaan naftiisii inaan guryaheena ugu soo noqon jirnay marka taas waxay tusinaysaa inay bannaan tahay hal dariiq inuu ku tago kusoo noqdo qofka salaada ciideynka waxay goormay soo gelaysaa waxay soo gelaysaa qoraxda markay kor u kacdo ilaa 3 mitir oo ilaa laga gaaro zawaalka laga gaaro 3 mitir markay ay ka kacdo meesha qoraxda ay ka soo baxayso ilaa laga gaaro zawaalka maalinta kale barkeeda oo zuusho intaas ayay waqtigeedu uu yahay wuxuu leeyahay jundub radi allahu canhu kana nabi sa yusalli bina alfidra washamsu calaa qaydi rumxayni nabigu wuxuuna tuji jiray ciidulfidriga iyadoo qoraxdu ay 2 waran qadarkooda la eg tahay 2 waran qadarkooda ay la eg tahay waladxaa calaa qaydi rumxin adxaagan wuxuu waran qadarkiisa يعني صلاة عيد الفطر dib u yara dhigi jiray لأن waxaa la rabaa zakaatu fidriga in la bixiyo intaan la tukan ka hor waa in zakaatu fidriga la bixiyaa
saasaa marka waqtiga dib u yar dhigi jiray. adxadana yacni waa soo hormarin jiray si dadka udxiyadii ay u qalaan. wuxuu leeyahy imaam الshawkani fi hada الxadiiث inahu axsana ma warada min alaxaadiiثi fi tacyiini waqti salaati الciidayn. xadiiska ugu xoogan ugu fiican waa xadiiskan waqtiga salaada ciideynka. waxaa ka muuqda marka in la dedejiyay salaada ciiduladxaaga, salaada ciidulfitr dib loo dhigo. ibnu qudaama wuxuu leeyahay adxaaga in waxaa fiican hore loo hormariyo liyatasica waqt daxiya, in waqtiga udxiyada si waqti loogu helo dadka wax qalaayo udxiyada loogu helo ayaa fiican salaada hore in loo dedejiyo. wa taakhiir alfidri yatasaca waqti ikhraaji sadaqat alfidri, in salaada ciidulfidrigan xoogaa dib loo dhigo si waqti loo helo dadka zakaatulfidriga bixinayo. 2 maalmood ka horaa la bixin karaa zakaatulfidriga, laakiin yani haddii qofku uu soo daaho ilaa salaada laga gala intaasaa waqtigeedu ku egyahay. waxaa kaloo ka mid ah axkaamta ciidda in la aadaamo lana aqimo labada ciidood. ibnu qayim wuxuu leeyahay nabigu alayh salatu wasalaam wuxuu ahaa ida intaha ila almusalla akhada fi salaati min gayri aadaanin. nabiga ibnu qayim wuxuu leeyahay يعني إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير آذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. يعني أذانك إقامة عيدينك markaan u nimaadno iyagu aadaan iyo qaawan midna ma laha, iyo asalaatu jaamica in la yidhaahdo. sunnadana waxay tahay inaan la samaynin wax ka mid ah aadaankii iqaamadii asalaatu jaamica, iyo sida loo joogan baa salaada la galaa la istaagaya. ibnu cabaas iyo jaabir waxay leeyihin ayaga lam yakun yu'adinu yowma alfidri walaa yowma aladxaa, muttafaqun. aadaan ma jiri jirin iyo aqimaad midna maalinta ciida fidriga iyo maalinta ciid aladxaaga. saasoo kale wuxuu leeyahy caطاء أخبرني جابر أن ألا آذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، ولا نداء يومئذ ولا إقامة. saasuu leeyahay caطاء can jaabir ka wariyey salaad ciid fidriga ciid adxaaga midna ma laha iqaamad iyo shay walaa shay ah, wax jira ma jirin oo laga hormarinayo salaada. sacd bn waqaas radi allahu canhu wuxuu leeyahy nabiga sala alciida bigayri aadaanin walaa iqaama. nabiga wuxuu tukaday ciidda aadaan la-aan iyo iqaama la-aan. wa kaana yakhtubu khudbatayni qaa'iman yufsilu baynahuma majlisa, wuxuuna nabiga akhrin jiray 2 khudbad oo fadhi u dhexaysiiyo ayuu akhrin jiray nabiga salaada kadib. waxaa kaloo sunnaha in la takbiirsado salaat alciideynka, takbiirta la akhriyo marka waxaa takbiiraadka dabcan salaadaha ciideynka takbiirta marka la tukanayo salaada ciideynka waa in la xirtaa. salaada xirashada kadib markaa 7 takbiiradood ayaa la sameynaa bacda alixraam. kadib uu qiraa'ada sameynaa imaamka. kadib tan dambana wuxuu sameynaa takbiirada laga soo kaco dhulka wixii ka dambeeya, markaa wuxuu la imaanaa 5 takbiiradood ayuu la imaanayaa. saas oo kale waxaa laga wariyay camr ibn shucayb can jadihi ana nabiy sal ly slam kabara fi ciidi 12 takbiira. nabiga wuxuu ciidi takbiirsaday 12 takbiiradood, 7 tii hore ragcaddii hore, 5 tii dambe. walam yusalli qablaha walaa bacdaha. salaadii ciidana waxba kama uusan homarin salaad ah, waxna kama uusan dibdhigin. haddii masaajidka lasoo galo iyadoo salaada ciidda la joogo, masaajid haddii lagu tukanayo dabcan taxiyatulmasjid ma tukan karaa qofka? ha, waa tukan karaa, taa dhib ma leh, waa salaad sabab leh markaas. laakiin marka dib bannaankii musallihii lagu tukanayo ma jiro sunno ka horreysay sunno ka dambeysay midna ma jirto. marka takbiiraadkaasna waa lala imaanayaa. yacni wax salaad ahoo ka horeeyo ma jiro iyo wax ka dambeeya midna, saan soo sheegnay. wuxuu leeyahay cabdullahi bn cabaas kharaja rasul lah sal sl yowma ciidin fasallaa rakcatayni lam yusalli qablahuma walaa bacdahuma. nabiga wuu soo baxay, wuxuu tukaday ciidda, wax ragcaduu ka hormariyeyna ma jiro, waxuu gadaashoo tukadayna ma jiro, wuxuu hortoo tukadayna ma laha. 2 ragcaduuna tukaday nabiga caleyh isalaatu wasalaam. salaada ciidigay ka asaxaysaa. salaada ciidda waxay ka asaxaysaa ragga iyo haweenka iyo caruurta iyo musaafiriinta, kuwa aan safarka ahayn intaba waa ka asaxaysaa.
ayagoo jamaacaho isla tukanaya iyagoo keli ah guriga waa ku asaxaysaa, masaajidka waa ku asaxaysaa, musallaha lagu tukanaya waa ku asaxaysaa. qofkii salaada ay dhaafto jamaacadu in la tukado markaa 2 ragcadood tukanaya kadib. imaam bukhaari wuxuu leeyahay baabun idaa faatahu alciidu yusalli ragcatayn, qofka hadday ciidii dhaafto jamaacadiisii salaada 2 ragcadood ayuu tukanaya. sidoo kale wakadalika الnisaa'u waman fi lbuyuuti wاlqura, dadka haweenka guryaha jooga iyo tuulooyinka iyagana sidaas oo kale ayay samaynaya iyagana, liqowli nabi sal nabigu uu yidhi hada ciiduna ahlulislaam, kan waa ciideennii ahlulislaam haddaan nahay. wuxuu anas ibnu malik wuxuu amray ibn abi cutayba ninkii mawlahooda ahaa bizaawiya fajamaca ahlahu wa baniihi wasallaa ka salaati ahli lmisri watakbiirihim, yani wuxuu tujiyey ehelkiisii uu kulmiyey iyo caruurtiisii, markaa wuxuu tujiyey dadka magaalada jooga say u tukadaan oo kale, waana takbiirsaday. cikrima wuxuu dhihi jiray waqaala cikrima wuxuu yidhi ahlu sawaadi yajtamicuuna fi lcidi yusaluuna ragcatayna kama yasnacu limaam. dadka sawaad waxaa loo jeeda dadka yani baadiyaha banaanka way isu imaanayaan kadib ha tukadaan, yani sida ay u tukanayo sida imaamka u samaynayo kale. cadaa wuxuu ahaa idaa faatahu lciidu sallaa ragcatayn, ciiddi hadday dhaafto 2 ragcadood tukan jiray. waxaa kaloo sunna ah khudbada in la akhriyo salaada ciidda kadib, waxaana sunna ah in la dhegaysto salaada ciid. dadku waa yaacaan, marka la yaaca la dhegaystay khudbada ciidda, laanna wax weynaa la sheegaya maalinka oo maalinta muslimiinta ay kulmaan. wuxuu leeyahay abi saciid kana nabiyu yakhruj yowma alfidri waladxaa ila almusalla wa awalu shan yabda'u bihi asalaa, nabigu wuxuu imaan jiray meesha lagu tukanayo ciidulfidriga adxaaga, wuxuuna ku bilaabin jiray waxa u horeeya salaada. uma yansarifu fayaqumu muqaabila annaasi, kadib uu ka bixi jiray salaada, dadka hortoodu istaagi jiray, wannaasu juluusun calaa sufuufihim, dadkana iyagoo sidoodii u fadhiya safafkoodii u fadhiyo, fayaciduhum waa wacdin jiray, wayuusiihim waya'muruhum waa u dardaarmi jiray nabiga, uuna amri jiray. wain kaana yuriidu an yaqطaca bacثan oo ya'mura bishayin amara bihi uma yansarif, hadduu rabo inuu wax diro yani ciidan inuu diro, hadduu rabo inuu wax meel u diro wuu amri jiray, markaa kadib u bixi jiray nabiga alay slam markuu dhameeyo. abu saciid wuxuu yidhi falam yazal yacmalu calى dalika xataa kharajtu maca marwan wahuwa amiiru madiina fi, yani waa qiso kaleenta iyadana. marka waxaa sunnaha khudbada in la dhegaysto oo aanan laga tegin oo dadku aysan ka darin khudbada la dhegaysto waa sunna. khudbada marka imaamka ayaa akhrinaya waa la wacdina maalinta, aad baa loo wacdiyaa dadka, aad baa loo xusuusiyaa. dad badan waxaa jira maalinkaa imaanayo ama meel fogfog jiro, yani ilaahay mahadiisa subxaanahu watacaala, yani marka waa inuu khadiibka khudba baliiqa akhriya oo dadku aad maaragtay u wacdiya. waxaa kaloo sunno ah oo maalinta ciidda soo arooray in la ciyaari karo, iyo lahwiga iyo ghinaaga iyo in wax la cuno maalinta ciidda ah. yani lacbi ciyaarta waa la ogol yahay maalinka, waxa la ciyaarta la ogol yahay, iyo lahwiga aan dembiga lahayn, iyo ghinaaga xataa aan dembiga lahayn. yani waxay ka mid tahay shacairta diinta ah. maalinta ciidda ah waa maalin nafta loo raaxeeyo oo entertainment ah, marka waxaa la ogolyahay muslimiinta waxay leeyihiin inay maalintaas ay ciyaaraan ciyaaro aan dembi lahayn inay samayn karaan maalintaas, yani nafta loo raaxeeyo. anas wuxuu leeyahay qadima nabi sal sl madiina, maalinta madiina ayuu nabiga yimid, walahum yowmaan yalcabuuna fiihima, ayagoo 2 maalmood leh ay ciyaaraan oo ay feesteeyaan, faqaala qad abdalakum allahu tacaala bihima khayra minhuma, 2 maalmood oo ciidda idin ah ilahay wuxuu idinkugu bedelay wax ka khayr badan, yowma alfidri waaladxaa, maalinta ciidulfidriga iyo maalinta ciiduladxaaga ah. caaisha waxay leedahay nimanka alxabasha kaanuu yalcabuuna cinda rasul sal slam, waxay ku ciyaari jireen rasuulka agtiisa fi yowmi ciidin, faطalactu min fowqi caatiqihi, waxaan ka fiirsaday ciyaartii masaajidka dhexdeeda ay ku ciyaareen. dabcan naagii niman isku jira ma ahayn, ama dhaantoo kale ma ahayn, dhaanta de waa naagi iyo niman isku doodinayo ma aha. yani waxa waye waa dad waxay ku ciyaarayeen seefaha iyo dagaalka, maaragtay ciyaar noocaasay ciyaarayeen oo ragga un keliya ciyaarayeen.
marka wuxuu yidhi caaisha waxaan ka fiirsaday nabiga garabkiisa